safarkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay gobolada bariga Soomaaliland ayaa telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV wax ka weydiiyay qaar ka mid ah dadweynaha reer Gabiley dadweynahan oo aragtidooda ka dhiibtay safarkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay safarada gobolada bariga Soomaaliland iyo soo dhaweynaha loogu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland goboladaasi bariga Soomaaliland ayagoo ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ah horta safarkaasi waa safar aan inaba caadi ahayn waa safar cajiiba waa safar bulshooyinka reer Soomaaliland dal iyo dibadba ay aad u soo dhaweeyeen waana safar la rajeynayay oo qiimihiisa leh safarkaasi markaad eegto imika xisbiyadii iyo bulshadii Soomaaliland ee bariga kala qaybsaneed waxaan oran karnaa qayb weyn buu ka qaatay aad buu isku soo dhaweeyay madaxweyne isbedelka aad sameysay waan ku garab taaganahay midka ugu muhiimsan qodobka ugu muhiimsan maanta ee safarada madaxweynaha laga dheehan karo waxa ka koowa waa safarka kaliya ee ay u dhan yihiin soo dhaweynta saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland haday wadan noqoto haday wicid noqoto iyo haday xisbi xaakimka noqoto kelmadan ku darsanaya waxa weey madaxweynuhu wuxuu afka ku dhaftay in imika siyaasadii geesku ay walaaqanta markaad eegto asiyaas soo kala hadan soo qaadano madaxweynaha Eritrea wuxuu yiri asiyaas maalinka bilaabay ilaa maanta wuxuu ka tagi waayay buu yiri 4 mitir arrinkaas waa xaqiiq madaxweyne waan kugu raacsanahay hadduu 4 mitir ka tagi waayay inaguna Soomaaliland ka tagmeen aad sida loo soo dhaweeyay mar waxaan moodayay 18 May baan ahaa magaalada Burco meedhimay dib uga bilaabantay sayna madaxweynuhu ugu jecelina u soo dhaweeyeen haddana nahay anaguna reer Gabiley mar alla markuu noo imaado waxaanu leenahay sidaas inuu soo dhaweynayna haddii Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan u qabsaday mikrofoonka inaan ka jawaabo su'aalaha ahayd sidoo aragtaa socdaalka madaxweynaha anigu socdaalka madaxweynaha waxaan arkay madaxweyne goboladiisa tagay waan ka filayn in goboladiisa soo kormeero ka warhayo waxaan uga fadhinaa inay ku xigi doonto tii dhalinyarta oo ah mawduuc aad u muhiimsan waa maasanta hadduu salal tago iyo hadduu baran tagaba oo madaxweynaha wadankiisa jooga mar labaad dadka reer Soomaaliland waxay cadeeyeen inay gob yihiin oo waxay cadeeyeen inay gunahay jirta mucaarado badan oo ka hadasha maxayba sidana kii kala Muuse wuxuu tagi doonaa meel kasta oo Soomaaliland kamid ah ha noqoto Laascaanood ha noqoto Ceeri Gaabo Burco waa ka hadda jooga Booroomaan Luweyd buu ka yimiday Gabiley uu soo maray salal uu tagi doonaa waa bari iyo galbeed dhamaan socdaalkiisana uu soo kordhinaya mashaariic badan oo haddaba inta uu joogo ka fulay Burco ballanqaadyo badan oo uu sameeyay Burco meel kastuu tago wuxuu ku soo kordhinayaa wax qabad weyn waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley.